بسم الله الرحمن الرحيم دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamid ciidamada cirka ee dalka Suudaan oo shaaciyay inay ka hortageen weeraro loo adeegsaday diyaaradaha droniska oo maleeshiyada RSF ay ku soo qaadeen magaalooyinka Khartoum iyo Omdurman wararkii ugu dambeeyay amuurtan ayaan idin soo gudbinaynaa Donald Trump oo shaaciyay in ciidamada caalamiga si degdeg ah loo geyn doono Suuriyada Gaza Turkiga iyo Masar oo ka biyo diidsan qorshaha ciidankan loo diyaarinayo iyagoo muujiyay walaac ay ka qabaan halista ku gadaaman maxay tahay halistani faahfaahin ayaan idinkaga haynaa inkastoo arrimahan iyo xabad joojin laga hadlayo Israa'iil waxay sii wadaa duqeymaha iyo weerarada ka dhanka ah maraykanka Gaza Netanyahu oo doonaya in Mareykanka uu ka helo ogolaanshaha arrin halisteeda wadata oo uu doonayo inuu ka fuliyo maraykanka Gaza dal muslim ah oo ku dhawaaqay inuu aqoonsaday Israa'iil isla markaasna uu ku biiray waxa loogu yeero heshiiska Ibrahim Mareykanka oo weerar kale oo dhimasho sababay ka geystay xeebaha Venezuela xilli cirka ay ku shareeran tahay xiisada aagaasi ka aloosan golaha maanka ee qaramada midoobayna waxay cunaqabatayntii ka qaadeen madaxweynaha Syria iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha dhammaan wararkan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xiisada Mareykanka iyo Venezuela ka aloosan iyadoo cabsi weyn ay jirto oo dagaal in uu dhaco ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in Mareykanka diyaaradaha dagaalka uu leeyahay ee B-52 ay dul mareen hawada waddanka Venezuela iyagoo muujinaya awoodda ciidamadooda ee cirka taasi oo ah markii afraad toddobaadadii ugu dambeeyay oo arrimo caynkan oo kala ay dhacaan laba diyaaradood ayaa dul maray badda Caribbean-ka iyagoo raacaya xeebaha Venezuela sida lagu sheegay macluumaadka raadarada duulimaadka dayuuradaha tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo Mareykanku ciidamo aad u fara badan iyo agab dagaal uu geeyay Caribbean-ka iyadoo sidoo kalena diyaaradaha dagaalka ee F-35 la geeyay jasiiradda Puerto Rico taasi oo qayb ka ah wax Washington ay ku tilmaamtay howlgal military oo lagu joojinayo ka ganacsiga daroogada ee gudaha Mareykanka laakiin waxa lagu tilmaamay taasi inay tahay cadaadis ka dhan ah xukuumadda madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro oo wajahaya ciidamo rasmi ah oo la xiriira ka ganacsiga daroogada ee gudaha Mareykanka laakiin Maduro ayaa ku eedeeyay Washington in ay daroogada u adeegsanayso marmarsiyo ay ku bedesho dawladda Caracas si ay ula wareegto kheyraadka saliidda ee hodanka oo ku yahay waddanka Venezuela madaxweyne Maduro ayaa daboolka ka qaaday in uu abaabulay 4.5 milyan oo ciidamo hubaysan ah si ay u wajahaan weerar kasta oo suurtagal ah oo Mareykanku uu ku qaado dalkiisa isagoo ku nuuxnuuxsaday inay iska difaaci doonaan wax kasta oo gardarro ah oo ka dhan ah dalkooda bishii August Donald Trump ayaa soo saaray wareegto ballaarinaysa awoodaha military ee Mareykanka si ay ula dagaalamaan kooxaha ka ganacsada daroogada ee Latin America iyadoo taasina ka dambeysay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo badda oo ka dhacay xeebaha Venezuela oo ay ku jiraan maraakiib badda quusta iyo maraakiib dagaal oo loo diray dalka Mareykanka xeebaha Mareykanku u diray xeebaha Venezuela dhinaca kale xogayaha dagaalka ee Mareykanka Pete Hegseth ayaa xalay ku dhawaaqay in ciidanka Mareykanku ay beegsadeen doon looga shakisan yahay in ay daroogo sido oo gooshaysay badda Caribbean-ka taas oo ay ku dhinteen 3 qof fariin uu ku qoray baraha bulshada oo uu raaciyay muuqaal hawada laga duubay ayaa muujinaya weerarka waxaana uu sheegay in weerarku ka dhacay biyaha caalamiga ah isla markaasna isagoo xusay in doontan ay lahayd koox uu ku tilmaamay argagixiso tani waxay tirada dadka ku dhintay ololaha Mareykanka ee ka ganacsiga daroogada Caribbean-ka ka dhigaysa in ka badan 70 qof
واتهاي وركاسنا halkaas aynu kaga gudubno barbarkan aynu eegno xaggaas iyo qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Suudaan halkaasi oo wararka ka imaanaya ay sheegayaan in maanta ciidamada difaaca cirka ee dalkaasi ay ka hortageen diyaaradaha drones oo maleeshiyada RSF ay ku soo weerareen magaalooyin kala duwan ciidamada cirka ayaa waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaarado aan duuliye lahayn oo ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF ay ku soo weerareen deegaano ku yaal waqooyiga magaalada Omdurman dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo xooggan laga maqlay waqooyiga magaalada saaka hiirtii waa bari toddobaadkii u dambeeyay RSF ayaa kordhisay weerarada droneska ee ay ku qaadayso goobo badan oo Suudaan ka mid ah oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Khartoum iyo garoonkeeda dayuuradaha 26 Oktoobar RSF waxay la wareegtay magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur oo ahayd halkii ugu dambeysay ee ciidamada ay ku sugnaayeen ee gobolka Darfur waxaana soo baxay warar sheegaya in RSF ay geysatay xasuuq ka dhan ah dadka rayidka waxaana la sheegayaa in dad badan ay ku qasabtay inay ka qaxaan aagaasi war cusub oo hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in diyaarada drones lagu soo weeraray magaalada Khartoum ee caasimadda sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee AFP goob joogayaal ayaa sheegay inay arkayeen diyaaradaha oo dul haabaya hawada magaalada daqiiqada ka hor waxaana lagu soo waramayaa in qaraxyo laga maqlay magaalada warkan wixii ka soo kordha wararka iyaga dambe ama intaynu barnaamijka ku jirno ayaan idin soo gudbinaynaa haddii Allah idmo waa tahay xagga Syria haatan haddii aynu eegno golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar ay ku laalayaan cunaqabatayntii saarnayd madaxweynaha Syria Ahmed al-Sharaac iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Anas Khatab go'aankan ayaa waxaa soo jeediyay Mareykanka waxaana ogolaaday 14 dal oo ka mid ah 15 dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ma jirin dal ka soo horjeestay Shiinaha ayaa ka aamusay dowladda Syria ayaa soo dhaweysay qaraarkan iyadoo ku amaantay Mareykanka iyo dalalka saaxiibka la ah sida hadalka loo dhigay taageeradooda wasiirka arrimaha dibadda ee Syria Asad al-Shacbani ayaa fariin uu ku daabacay baraha bulshada waxa uu ku sheegay in Syria ay mahadnaq u hayso dalalka taageeray in dadka Syria arrintan ay markaasi ugu hiiliyaan waxaan taasi ku daray in diblomaasiyadda Syria mar kale ay muujisay awoodeeda iyo kaalinta firfircoon ee ay ka qaadanayso ka saarista caqabadaha iyo dhisidda mustaqbalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in isniinta uu ku soo dhaweeyo Ahmed al-Sharaac madaxweynaha Syria aqalka cad madaxweynaha Ahmed al-Sharaac ayaa horay wuxuu u hogaamin jiray kooxda Tahrir al-Sham oo horay loogu yaqiin Jabhat al-Nusra oo ka mid ahayd al-Qaacida waxaana lagu daray liiska cunaqabataynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay 2014 iyadoo la xiriirinayo al-Qaacida iyo Daesh kooxda Tahrir al-Sham ayaa hogaaminaysay kooxihii hubaysana ee Syria ee xukunka ka tuuray madaxweyne Bashar al-Assad 8 bishii December ee sanadkii inay wadaartay 2024 kuwaasi oo si buuxda ula wareegay magaalada Dimashq ee caasimadda ah waa tahay waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay Gaza halkaasi oo Israa'iil weerar ay ka sii wado Donald Trump oo sheegay in si degdeg ah ciidamada carabiga ah la geynayo marayka Gaza laakiin Turkiga iyo Masar ayaa waxay muujinayaan inay ka walaacsan yihiin qodobo ka mid ah ciidamadan sharciyada la siinayo arrintan dhabarjab bay ku noqon kartaa wadamadan oo si weyn dhexdhexaadinta uga qayb qaatay waxaan kaloo idiin haynaa wadan muslim ah oo aqoonsaday Israa'iil kuna biiray heshiiska loo yaqaan Abraham wararkaas iyo qodobo kale intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo tahay Gaza aynu ka hormarno inkastoo xabajoojin ay jirto heshiis laga hadlayo ciidamo laga hadlayo nabad ilaalin oo la geenayo Gaza laakiin Israa'iil waxay sii wadaa weerarada ka dhanka marayka Gaza telefishinka Al Jazeera ayaa goordhaweyta waxa uu tabiyay in ciidamada Israa'iil madaafiicda goobta ay ku garaaceen dhowr aag oo ku yaala Suuriyada Gaza dhinaca kale waxa la sheegayaa in aaga Khan Yunis iyo bariga magaalada Gaza qadka jaalaha oo ciidanka Israa'iil ku sugan yihiin diyaaradaha Israa'iil weerar ay ka geysteen dhinaca kale ciidanka Israa'iil ayaa la sheegayaa in ay weerareen deegaanka Beni Suhayla oo ku yaala bariga Khan Yunis
waxaa kaloo wararka ka mid ah wasiirka gaashaandhigga Israel Katz ayaa fariin u soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku sheegay in ciidankooda maanta ay qaadeen si hadalka u dhigay weerar ay ku burburinayaan godadka Xamaas ee Mareykanka Gaza ku yaal wararka la xiriira Gaza waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna ku andacooday in ciidamada caalamiga ah ee xasilinta markaasi si degdeg ah lagu geyn doono Mareykanka Gaza waxaana uu sheegay in socdaan si hadalka u dhigay arrimo wanaagsan Trump ayaa ka sheegay aqalka cad isagoo la hadlay dadka wararka fidiya in Xamaas dhibaato weyn la kulmi doonto haddii aysan u dhaqmin sida ay ballan qaaday oo sida hadalka uu yiri wuxuu yiri waxaa jira dalal iskood u soo bandhigay in ay xaaladdan soo farageliyaan haddii dhibaato ay ka timaado Xamaas ama arrimo kale xogayaha muuraha dibadda Marco Rubio ayaa dhankiisa sheegay in dalalka tabarucaad ay sameynayaan kuwaasi oo qayb ka ah in ciidamadan ay ku biiraan qamiistii hore sarkaal Mareykan ayaa u sheegay warbaahinta in Mareykanku uu diyaariyay qaraar ku saabsan ciidamadan caalamiga kaas oo loo gudbiyay golaha maanka ee qaramada midoobay inkastoo arrimahan ay jiraan dowladaha Masar iyo Turkiga ayaa waxay muujiyeen walaac ku saabsan qorshaha Mareykanka ee qaraarka qaramada midoobay ee ogolaanaya in la sameeyo ciidamo caalami ah oo ka howlgala Gaza si ay hubka dhigis ugu sameeyaan iska cabinta Falastiiniyiinta sida macluumaad ay ku heshay shabakadda Middle East Eye qaahira ayaa waxaa la sheegay inay ka baqayso in lagu qasbo inay xoog hubka uga dhigto Xamaas waxayna ku adkaysanaysaa in halkii laga isticmaali lahaa xoog la qabto wadahadal ku saabsan wareejinta hubka iyo cafis loo fidiyo dagaalamayaasha Masar ma qaban doontaa la yiri shaqadii Israa'iil ku guuldareysatay dhinaca kale mas'uuliyiinta Turkiga ayaa digniin ka bixiyay in qaraarka la soo jeediyay ee ciidanka nabadgelyada markaasi loo arki karo ciidamo booliis ah guumaysiga halkii aan lahaayeen kormeerayaal dhexdhexaad ah Ankara waxay doonaysaa baa la yiri in ciidankaasi lagu soo koobo ilaalinta xadka hirgelinta xabajoojin dhaba taas oo hoos timaada qaramada midoobay laakiin labada waxa la sheegayaa in Mareykanku uu ka reebay wada tashiyada arrimahani laga lahaa arinta marka waxay dul istaagno labadan wadan waa labada wadan ee aadka uga shaqeeyay in iska caabinta ay aqbasho xabajoojinta labadii hadda sida shabakadan ay leedahay Middle East Eye waxa laga reebay wada tashigii maxaa yeelay waxay ku dhagan yihiin dagaal iyo xoog iska caabinta hubka lagama dhigi karo tan kale Israa'iil ba ku guuldareysatay 24 bilood dagaalkan waday annaga miyaa marka doonay inaan Israa'iil wax ay qaban weyday ama ay ku guuldareysan weyday aan qabano laba arrin bay noqon kartaa marka ayaa la leeyahay in labadan wadan siriq Mareykanku u dhigay siriqdan ay ku dhaceen maxay tahay siriq maxaabiista la wareejiyay oo nool oo 20 ka ahayd Turkiga ayaa qaybta ugu muhiimsan ka dhacay Xamaas Masar sidoo kale kaalin bay ku lahayd waliba Turkiga diblomaasiyad buu u hadlayay Masar oo taageero badan oo dhanka dhaqaalaha ka hesha Mareykanka si cad waxay u tiri ciidanka iyagu ma qabanayaan wixii Israa'iil ku guuldareysatay oo ah hubka in laga dhigo iska caabinta marka arrintan Mareykanku ma ka soo degi doonaa buurta u saaran yahay oo wadamadan moodhag raaricin doonaa waxa ay walaac ka qabaan mise arrin Israa'iil ku qancinayo ayuu sameyn doonaa inuu yiraahdo ciidamada keenayna hubkan waxaan ka dhigaynaa iska caabinta ilaa waynu maqlaynaa Trump wuxuu sheegayo arrintu marka meel adag bay maraysaa waayahay qodobkaas marka laga tago ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna waxaa la sheegayaa in uu ka dhaadhicinayo Mareykanka in fasax loo siiyo in si xor ah Israa'iil ay uga halgasho Mareykanka Gaza sida ay qortay jariirada daleerado iyo dacwad taxranood Israa'iil waxay dalbanaysaa in la helo heshiis iyo isfaham ku aadan qaraarka golaha maanka qaramada midoobay loo gudbiyay ee ku aadan mustaqbalka Gaza waxaana markaas la sheegayaa Israa'iil inay doonayso heshiis la mid ah kan Lubnaan oo kale oo ah in xilliga ay doonto weerar ay ku qaadi karto Mareykanka Gaza macnaha waxa loola jeedaa inay isku dayayso Israa'iil waxaan doonaa sameynaya Mareykanka Gaza waayahay qodobkaas halkaas aynu ku dhaafno markaan waxaynu u gudbaynaa wadan muslim ah oo aqoonsaday Israa'iil isla markaasna ku biiray heshiiska loo yaqaan Abraham dowladda wadanka Kazakhstan ayaa ku dhawaaqday in ay ku biiri doonto heshiiska caadiyeynta xiriirka Israa'iil ee loo yaqaano Abraham tilaabo loo arkay mid astaan u ah xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil la sameeyay wadamada muslimiinta ku biiristan ayaa waxa la sheegayaa in ay ka turjumayso qorshaha maamulka Mareykanka dhabarka ku riixaya ee la xiriira in wadamada muslimiinta gaar ahaan kuwa Carabta
xiriir ay la samaystaan Israa'iil wakiilka Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff ayaa waxa uu xalay sheegay in ay jiri doonto dawlad ku soo beeri doonta heshiiska Abraham laakiin shabakada wararka ee Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxay sheegtay in Kazakhstan inkastoo markii horeba xiriir ay la lahayd Israa'iil haddana imika ay si rasmi ah ugu soo beerayso waxa loo yaqaan heshiiska Abraham waayahay qodobkaasna halkaas aynu kaga gudubno waa tahay bal hadda aynu eegno haddii ay jiraan wax warar ah oo wararka ku soo kordhay intaanan barnaamijka aan ka bixin iyadoo wararku iska soo daba dhacayaan Khartoum ayaa wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in diyaaradaha droniska laga hortagay weerarka ay soo qaadeen ciidamada RSF wararka ugu dambeeya wararkaas dhanka qasana waxaa la sheegayaa in duqeymo Israa'iil ay wado inkastoo ilaa hadda aan la soo warin wax qasaara ah oo duqeymahaasi ka dhashay waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka daawade waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa